waa qaybtii 8aad iyo barnaamijka su'aalaha iyo jawaabaha. waxaanse barnaamijka maanta ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah su'aalaha Instagram-ka. Su'aasha koowaad: walaal, waxaan ku weydiiyey su'aasha ah, maxaa ka jira Coca-Colada qoraalkeedii la yiraahdo waxaa lagu qoray laa Muxammadan walaa Makka, mise waa hadal Soomaalida iska tiraahdo oo waxba aanan ka jirin? hadalhaynta loogada shirkadda Coca-Coladu waa wax dunida muslimka oo dhan 20kii sano ee la soo dhaafay aad loo hadalhayay, mana ahan wax ku kooban Soomaalida oo keliya, waayo loogadani marka si wanaagsan oo gadaal loo akhriyo waxaa ka soo baxayo kelimado Carabi oo micnahoodu uu yahay Nebi Maxamed iyo Makaba wax jira ma aha. muslimiintu waxaa ka mid ah kuwa arrintani ku tilmaamay inay tahay aragti shirqoola oo yahuud naciib salka ku haya. waxa ayna leeyihiin wax walba haddii gadaal loo akhriyo luuqadda shayga uu ku qoran yahayna luuqad ka baxsan haddii shayga lagu akhriyo waxaa lama huraana in macno shayga uu ka soo baxayo. waxaase xaqiiqa oo weligeedna jiri jiray in kirishhtaankii yahuuddaba ay ahaayeen dad aad ugu dheereeya hadalqaloocinta iyo jeesjeeska, waana wax dhici kara in kelimadahani habka loo qoray khaasatan farta jiifjiifka in nidaamkani laa Muxammadan walaa Makka in la isugu soo aadaadiyey. kitaabka Qur'aanka Kariimka waxa uu inoo sheegayaa in waagii Nebi Maxamed uu noolaa yahuudda hadalla sidani oo kale u magdah oo aanan la fahmayn ayay nebiga iyo saxaabada markay u imaadaan ayay u sarbeebi jireen, iyaga oo ujeedadoodu ay tahay in nebiga iyo saxaabaduba ay caayaan. sirtani kitaabka Qur'aanka marka uu ka fashilinayo waxa uu dhahay dadka alla rumeeyow ha isticmaalina kelimada raacina ee beddelkeeda isticmaala undurnaa, iyo kelimado kale oo badan oo sida ayay nebiga iyo saxaabaduba u isticmaali jireen. dhaqankanina 1400 sano ka hor waxay isticmaali jireen awoowayaashoodii maadaama ay tahay waa dad laga filan kara jeesjeeska iyo hadal akhrinta noocani oo kale ah. sida xaqiiqada ahna alle oo keliya ayuunbaa og. su'aasha labaad: Ustaad Cabdirashiid, waan ku salaamay. magacaygu waa Yuusuf Aadan oo jooga Beledweyne. waxaan wataa hal su'aal. su'aasheedu waxa ay tahay qofka marka keliyaha laga taabta maxaa keena qosolka? waxaan filayaa inaad iga soo jawaabi doontid. mahadsanid. dareenka qofka marka keliyaha ama kilkisha xitaa dadka qaarkood lugaha marka laga taabto inay dhibsadaan oo reaction xoog badan ay bixiyaan waa wax bani aadamka in badan uu ka fekeray. waxa sababayana ilaa hadda jawaab rasmi oo scientifically arrintani looma hayo, balse aragtiyooyinka khubaradu ay ka qabaan arrintani ayaa ah in mekanismka cabsida ee isbadbaadinta noolaha iyo kumanaan sano wax awoowayaasheeni inooga soo gudbay inay tahay ayaa la sheegaa. dadka lugaha aad u dhibsada in laga taabtana waxaa lagu sheegaa taariikhda evolutionka dadka iyaga oo cagacad ama xilligii dadku cagaha ay cadaayeen masaska iyo xasharaadka halistaasi ay isaga difaacaan darteeda. dareen xasaasi ah oo degdeg qofka active ka dhiga qof soo jeeda durba marka la taabtaba ayuu jiinkoodii ku guulaystay. sidoo kale kilkilaha ama kiliyuhu meelo xasaasi ah maadaama ay yihiin iyaguna waxaa lagu sheegaa awoowayaasheenii hore isdifaac dartiisa waxyaabaha aysan garanayn si aysan u taaban dareen xasaasi ah ayuu jiinkoodii ku guulaystay. in arrintani wax la xiriira evolutionka ay tahay ayaa lagu tilmaamaa. haddaba su'aasha macquulka ah ee halkani imaan karta ayaa waxa ay tahay haddii dareenkani dhibsashada in la taabta keliyaha ama kilkiluhu ay yihiin mekanismka cabsi darteeda wax noolaha uu la soo hormaray, haddaba dadku maanta marka laga taabta maxay u qoslaan oo aysan u cabsan? bilowgii qofka marka xubnahani laga taabta dareemihiisii maskaxda ayay u gudbaan. qofka taabanayo qof halis uga imaan karta qofka marka uu arko mekanismka cabsida beddelkeed qosol iyo boodbood ayuu qofka ka helaa. tanina waa aragtida maanta laga rumaysan yahay dareenkani dhibsashada marka keliyaha qofka laga taabto. su'aasha saddexaad: assalaamu calaykum walaal Cabdirashiid, magacaygu waa Deeq Faarax oo jooga Burco. waxaan ku weydiin lahaa 2 su'aalood. maxay dumarka u dhahaan ama bulshada qofkaasi qalbiga ayuu iga jebiyey dib dambana qofka ula hadli maayo? su'aasha labaad: maxay dadka qaarkood qalbiga ayaa la iga jebiyey u dhahaan haddana xoogaha kadib dib ay u aqbalaan? walaal iga soo jawaab. mahadsanid. ilaahay ha kuugu anfaco cilmiga aad baratay aakhiro iyo adduun. qofka bani aadamka wuxuu aad u neceb yahay inuu arko wax uu kiraahsaday. waxa uu jecel yahay gebi ahaanba
yaabaa in waxaasi sida inaysan jirin oo kale inuu ka soo qaado. qof qalbiga laga jebiyeyna ama qof dhaawac xoogan maskaxdiisii loo geystay automatically dareenka dhaawaca ee qofka maskaxdiisii ku dhacay waxa uu isku beddelaa neceyb iyo kiraahi waxani qofka uu ku sameeyey darteeda. kadibna qofka xumaanta qofkani ku sameeyey sida inuusan jirin oo kale maskaxda qofka loog ayay iska saartaa. dib dambena qofkaasi hadalkiisa iyo meelaha uu joogaba qofka waxa uu bilaabayaa in uu naco. waa qofka maskaxda tiimbar uu ugu calaamadeeyey. dareenkanina gabdhaha iyo wiilashaba waa ay ka siman yihiin. su-aasha qaybteedii labaad, haddaba dadkani muddo kadib marka iga raali ahow lagu dhaho maxay u aqbalaan? sida bilowgiiba aan kuu soo sheegay, qofka marka uu qofkani kiraahiye nacayb ah uu u qaadayo waxaa ku kalifayo ficilada xunxun ee qofkani uu ku sameeyey. mar haddii ficil sameeyaha uu la garto in waxani ay qaldanaayeen uuna ka xun yahay qofkaas sida furo oo kale waxa uu bilaabayaa in maskaxdiisii degdeg ay ku furfurmato. sababtoo ah wixii uu dhibsaday uuna ka xanaaqay qofkani waa uu la gartay in qalad ay ahaayeen. dadka qaarkoodna heerka dareenkoodii marka iga raali how lagu dhaho automatically waa ay ooyaan. sida uu qofkaasi maskaxdiisii zaa'idka ugu qufulay ayaa si degdeg ah looga furay dareenkii nacaybka ahaa ee qofka maskaxdiisii ku jirayna waxa uu durbo isku beddelay dareen cafis ah. qofkuna muddadani dadka qaarkood inkastoo isku mid aysan ahayn ma ay xamili karaan automatically waa dad qiirooda ama ilmeeya. su-aasha kale, assalaamu calaykum ustaad cabdirashiid, magacaygu waa xasan cali nuur oo jooga Germany. waxaan kaaga mahadcelinayaa mar walba sida aad inoogu faa'iidayso. mahadsanid. waxaan qabaa 2 su'aalood. su-aasha koowaad, waxaan fahmi waayey sababta bani aadamka aysan iskugu mid u ahayn dhanka difaaca jinka. sababtoo ah waxaan maqlay dadka qaarkood difaacoodii ayaa adag, dadka qaarkoodna difaacoodii in sida uusan u adkayn. waa maxay sababta? su-aasha labaad, wadaadada qaarkood waxa ay sameeyaan in qof xanuunsan marka loo keenay in wadaadka uu ku akhriyo qur'aan kadibna qofka laga xiro 2 far ee yaryar kadibna qofka lagu dhaho ma insi ama jinni maxaa tahay. kadibna qofkii un ayaa hadlayo, isla codkii unbaa qofkii ka baxayo. waxaasi ma aanan fahmin jinniguse maxaa loo arki la'yahay, sidee ayuuna jinnigu u qaab eg yahay? mahadsanid, iga soo jawaab biliis inta aanan arrimaha aanan cilmiga u lahayn aanan dembi ku gelin. waayo ma aaminsani mana fahamsani arrintani ustaad. difaaca jinka bani aadamka waxa uu ku xiran yahay hadba jiinka qofka. qofka bani aadamka ahna marka uu yar yahay ee dhalinyarada uu yahay difaaca jinkiisu aad ayuu u xoogan yahay. marka ka dambaysa ee qofka waayeel uu noqdana difaaciisa sababta uu hoos ugu soo dhacayo waa in unugyada qofka waayeelka jinkiisu howlgab tartiib ay u noqonayaan. tanina waxa ay la xiriirtaa iskala qaybinta unuga iyo taloomeradiisa. qofka marka uu dhalinyarada yahay muuqaalka wejigiisa iyo jinkiisu waa qof dhisan oo aad u dhalaalaya. marka uu weynaado in maqaamka wejigiisa iyo qaybaha kale ee jinkaba in ay kaduudmaan. sababta ka dambaysa ayaa ah sababta unugyada qofka waayeelka daciif ay u noqonayaan. sidoo kale qof kasta oo waayeela unugyadiisii jinka ayaa daciif ah, wax la dhaha ma jiro. qof waliba ayaa unugyadiisii difaaca jinka daciif noqon kara. waxa ugu weyn ee sababa in unugyada difaaca jinka ay daciifaanna waa cunto la'aan ama raashiinka qofkaanan isku dheelitirnayn ama in qofka gaajo caado uu ka dhigto. hawada qabowga, hurda la'aanta, istaraaska badan iyo fakarkii waxyaabaha la midka ayaana sabab u noqon kara in difaaca unugyada jinku ay daciifaan. laakiin waxa ay ku fiican yihiin unugyada difaaca jinka in mar walba kor loo qaadi karo. haddii qofka uu raaca tilaabooyinka caafimaadka, unugyadiisii difaaca jinka muddo kooban waa uu dhisan karaa. qaybta labaad ee su-aasha haddii aanse u gudbo, wadaadada qaarkood marka dad xanuunsan loo keeno faraha inta ay qofka ka xiraan ayay ku dhahaan ma insi ama jinni, kee ayaa tahay? qofka hadlaya waa isla qofkii aan naqaanay. jinniguse haddii dhab uu yahay maxaa loo arki la'yahay hadal uu micnihiisu yahay iyo su-aasha labaad u dhigmaysay.
waxaa xaqiiqa oo qur'aanka kariimka uu sheegayaa in jinni uu jiro. Jinnigu sida suuradda Acraaf laga fahmi karo, bani aadamku waa uu arki karaa, balse bani aadamka jinnigu ma uu arki karo. Marka asalka shaydaanka faracoodii jinniga laga soo qaado, laakiin jinnigu dhab ahaantii qof bani aadam ah ma geli karaa sida maanta aan aragno waa su'aal culimmadu ay ka doodeen. qaar ayaana qaba iyaga oo daliishanaya aayadda ribada ee suuradda Al-Baqara waxa ay leeyihiin jinnigu awood ayuu u leeyahay in dadka uu dardaro kadibna jinkoodii uu galo. Su'aasha kale oo imaanaysa ayaa waxa ay tahay jinnigu dhab ahaantii maba la arkee sidee ayuu codkiisii inoo maqalsiin karaa? waa mas'ale iyaduna absolutely culimadu ay ku kala tagsan yihiin, waxaana sabab u ah in maanta dadyo badan oo sheeganaya in jinnigu ay la hadlaan in ay jiraan. qaar ayaa waxa ayba dhahaan jinnigu waa lala hadli karaa, laakiin shardi waxa ah in jinnigu bani aadam uu ku hadlo ama qof connection u noqdaa in jirkiisii uu gala kadibna qofka luuqadiisii ayuu jinniga ku hadlaa. laakiin arrimahani si guud waa arrimo khilaaf weyn uu ka taagan yahay, waana culimada gebigoodii aysan isku wada waafaqsanayn. inaguse waxaa inala haboon maadaama wax la taaban karo oo aan arki karno aysan jirin inaan ka gaabsano oo wax faalaah aanan ka bixin si midkeen wuxuusan aqoon inkiraad ama indhala'aan uu u rumayn lahaa. su'aasha kale, assalaamu calaykum ustaad cabdirashiid, magacaygu waa Abshir Nuur Hiikey oo jooga Muqdisho khaasatan Madiina. ustaad waad mahadsan tahay sida aad inoogu soo gudbiso waxyaabaha faa'iidada inoo leh. allaha kuu naxariisto adduun iyo aakhiro. ustaad waxaan wataa 2 su'aalood. su'aasha koowaad, ma laga yaabaa dayax-gacmeedka in dayax-gacmeed kale uu ku dhaco? haddii uuse ku dhaco, qarax miyaa meesha ka dhalanayo? su'aasha labaadse, ma laga yaabaa dayax-gacmeedka in cillad farsamo ay ku dhacdo dhulkana uu ku soo dhaco? haddii dhulka uu ku soo dhacana dadku ma ka badbaadayaan? waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad igu soo jawaabi doontid. mahadsanid, allaha ku dhooro ustaad. dayax-gacmeedyadu dhowr jeer oo badan ayay isku dhaceen 2007, 2009, 2011 iyo sannado badan ayay dayax-gacmeedyadu isku dhacayeen. xitaa si loo arko isku dhacoodii natiijada ka soo bixi doonta tijaabo ayaa lagu sameeyey. hadba waxa ay ku xiran tahay xawaaraha dayax-gacmeedka uu ku socdo. si xowli ah iyaga oo ku socda marka ay isku dhacaan, kaliya dayax-gacmeedka ayaa burbur sida baabuuro isku dhacay oo kale ku imaanaya. waxaana aad u adag dayax-gacmeed kale ku dhacay fiilkiisu in dhulka uu soo gaaro. wixii fiil ah iyo satellaytyada cimrigoodii uu dhammaaday ee aanan la isticmaalin ee hawada ku burbura adduunka hareerihiisii ayay sida qashinka oo kale u buuxaan. waana waxa loo yaqaana qashin qubka adduunka hareerihiisii ku daadsan. satellaytka halka uu joogo waxaa ka hooseeya atmosfeer xoogan ee dhulka bannaankiisii. wixii burbura ee satellaytka ku dhaca atmosfeerka dunida ma ay soo geli karaan, balse in 2 satellayt ay isku dhacaan waa dhacdo naadir ah. xawaaraha ay ku socdaan waa kuwa mar walba sugan. 2 diyaaradood inay isku dhacaan sida wax naadir ah oo daciif ah ay u tahay oo kale. dayax-gacmeedyaduna isku dhacoodii waa kuwa naadir ah. su'aasha kale, assalaamu calaykum ustaad, magacaygu waa Raafid, waxaan joogaa Muqdisho. ustaad waxaan ku weydiinayaa maxaa sababa hingada? mahadsanid. hingadu waxaa sababa muruqa caloosha iyo feeraha u dhexeeya ee diaphragmka loo yaqaano. qofka marka uu bilaabo in cunno si xowli ah uu cuno, biyaha qabowga ama wax kulul qofka haddii uu cabo, ama xilliyada qofka sida aadku u qoslo ama uu ooyo, waxa uu bilaabayaa muruqani si automatically inuu giigsamo, qofkuna waxa uu bilaabayaa inuu hingoodo. tanina waa hingada dabiiciga ee caafimaadka, laakiin hingooyinka qaarkood waxay astaan u yihiin xanuun qofka ku soo socda. qofkuna haddii hinge aanan kala joogsi lahayn uu isku arko, waxaa habboon dhakhtarka ugu dhow in arrintan uu la qaybsado. su'aasha u dambaysa, ustaadow magacaygu waa Axmed Cali, waxaana joogaa Baraawe. waxaan rabay inaad iga jaahil bixiso arrintaa adduunka misena dhulka aynu ku noolnahay inuu wareegayo. dhanka kale qoraxda ma wareegataa sida dhulka oo kale mise wareegeedii waa uu ka duwan yahay? waxaan kaa sugayaa jawaab inshaa allah. mahadsanid. kownka aynu ku noolnahay waxa keliya ee uu ku kala socdo waa dhaqdhaqaaq. wax aanan dhaqdhaqaaqinna waa wax aananba jirin. iska badaaye in qoraxda ama dhulka ay socdaane hareerahaagii wax walba aad moodo inay taagan yihiin. dhaqdhaqaaq ilma aragtaha ayay ku jiraan.
tanina waa qaanuunka dabeecadda ay u shaqayso. xitaa dadka dhintay jinkoodii intaa oo keliya dabeecadda xeerankoodii uguma ay haraan jinkoodii, xitaa falgal chemical reaction dhaqdhaqaaqa ayaa ku socda. sidaasi darteeda dhulka, qoraxda, xidigaha, meerayaasha wax aanan dhaqdhaqaaq ku jirin koonku maba jiraan. shay aanan dhaqdhaqaaqinna fisigis ahaan waa wax mala awaal ah oo aananba jirin. tanina waa beesiga fahamka fisigiska. kitaabka qur'aanka kariimkuna waxa uu inoo sheegayaa in qoraxda ay dhaqdhaqaaqdo. sayniskuna waxa uu sheegayaa in dhulka kubad uu yahay, sidoo kalena uu wanaagsado. labadoodiina mid walba si kala gaar ah ayay u wanaagsadaan. inaguna maadaama dhulka aynu ku jirno, dhulkana uu weyn yahay, suuragal inooma aha inaan dareemno habka dhulku u wareego. wareegani dhulkana atmosfeerka sare ee cirkuna wareega dhulka ayuu la socdaa. qaanuunka koowaad ee Newton waxa uu leeyahay shay haddii uu socdo, shaygaasina awood kale oo celinaysa haddii aysan jirin, shaygaasi dhammaantiisa hal jiho ayuu ku soconayaa. shayga in jihadiisii ama qadkiisii uu ka leexdo waxaa laasima, sida qaanuunkani koowaad uu qabo, in awood kale shaygaasi bannaanka uga imaado. sidaasi darteeda atmosfeerka sare ee dunida iyo adduunkaba hal jiho iyo hal qaab ayay u wanaagsanayaan, iyada oo la raacayo qaanuunkani koowaad ee Newton.